محمد أحمد بكال أو عراق مقعدير أرنتاس أو لحديدي إن سومالان لغو عسرية أما بلغا شكت هطبا إن فنانك حتى يا لتشوغنا إن فالأرنتاس نوغور بدر كوسار واد محسن تهي waxaan caaw halkan soo fadhiistay horta ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay aad baad mahadsantihiin gaar ahaan ummadda reer Somaliland sida fiican uga dhiidiyeen horta Badriyo wax cusub dhacdo cusub ayay ahayd hawshaasina way jirtay weerarkaasi wuu jiray la igu soo qaaday oo gawaadhi dad badan ka buuxaan la soo weeraray habeen hore ma jirtaa cid aad arinta weerarka aad u aaneynayso ama aad ka shakisan tahay wallahi Badriyo horta xilli dambe ahayd goor dambe ahayd anigii Cabdiraxmaan Caydiid oo wada socona gurigan ka soo baxnay dabeedna ilaa 3 gaari ayaan laga soo daatay baadeen anaguna markaan naftaydii badbaadino ayaanu isku daynay alxamdulillah horta ilaahay naga badbaadiyay yahay Soomaaliland sidaad ogtahay fawda ma aha nidaam baa ka jira waad ogtahay ma jirtaa hay'adaha ammaanka ma u gudbiseen arintiina Badro waa lagu horta hawsha waa lagu gudo jiraa dawladana baara Saciidi waxa ka dambeysay waa lagu gudo jiraa way su'aashaday ugu dambeysay aad iyo aad marka hore u mahadsan tahay su'aasha bulshada isweydiinaysa ayaa in fanaanka aad ogtahay BK oo Kenya loo soo diiday ayaa leeyahay arintan iyo xiriirkeed iyo qorshaha Facebook-yada arintaas ayaa ku jirta maxaad ka leedahay si kooban wallahi horta taa hal ereban ka oranayaa Badriyo aan waxa la horta fanka siyaasadda laga daayo fankiisa siyaasadda meel mooda galaan nagu faan baanahay ereygaasaan oran lahaa fanka iyo siyaasadda hala kala saaro waxa jira dad badan oo adiga ku taageersan oo si weyn qaarkood ara ka mujireen baraha bulshada qola kale si kala u dhigaysay fariinta bulshada ku taageersan ee Somaliland aad u diraysaa maxay tahay wallahi waxaan u dirayaa waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin ani Hargeysa waa magaaladeedii waan magaaladan ku dhashay ku dhaqmay ku koray waa dalkaygii hooyo waxaan leeyahay aad baan idinku mahadcelinayaa meel kastoo joogtaan aad baan idinka mahadcelinayaa malay mar labaad iyo mar saddexaad bulshada reer Somaliland iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan annaga wada soconay faahfaahinteedina uu sheegay Maxamed waana lagu daba jiraa waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ummadda meel kastoo dunida joogaan arintan ka ficil celisay haddii af noqoto haddii ficil noqoto iyo haddii baraha bulshada noqotoba aad baan u mahadsanyiin waxaan ku darayaa oo kale in fanka iyo la kala saaro siyaasadda oo fanka la siyaasadeynin fanka iyo siyaasaddu isma geeyaan mana iskalaan aad baan u mahadsantiin dhamaantiin arintaasina insha Allah bidnaahi kariim waxay noqon doontaa arin dadka reer Somaliland ay wax badan macnaha ay kaga tusaale qaataan aad baan u mahadsantiin dhamaantiin